asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. qisada islaamnimadii sayidunaa cumar binulkhadaab radiallahu tacaala canhu wa ardaah. abtirkiisu waa cumar binulkhadaab binu nufayl binu cabdilcuza binu riyaax binu cabdullaahi binu qurt binu rasaax binu cadiy binu kacab binu lu'ay binu khaalib. waxay cumar binulkhadaab abtirkiisa iyo nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam abtirkiisu ku kulmaan kacab binu lu'ay. cumar binulkhadaab hooyadiisa waxaa la yidhaahdaa xantamatu bintu haashim ibnulmugiira. waxay ilmo adeer la tahay abijahal iyo walaalkiisa xaaris ibnu hishaam. cumar binulkhadaab radiallahu canhu wuxuu ahaan jiray nin adag oo geesi ah oo aad u xoog badan. intuusan islaamin ka hor wuxuu ahaan jiray nin aad u colaadiya diinta islaamka, wuxuuna ka mid ahaa dadkii ugu cadowtinimada badnaa nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ahaan jiray nin haba yaraatee wax naxariis ah qalbiga ugu haynin diinta islaamka. maalin maalmaha ka mid ah ayuu cumar binulkhadaab wuxuu go'aansaday in uu soo dilo nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam. markaas buu seeftiisa intuu soo qaatay waddada ku soo dhacay si uu u soo dilo nebiga sallallahu calayhi wasallam. intuu waddada ku sii jiray ayaa waxaa ka hor yimid nin ka mid ahaa saxaabadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, balse qarsanayay iimaanka. markaas buu saxaabigii ku yidhi, xaggee baad u socotaa cumarow? wuxuu cumar ku yidhi, waxaan u socdaa in aan soo dilo muxamed. markaas buu saxaabigii ku yidhi, kadibna yaa kaa celinaya bani cabdulmutalib? markaas buu cumar saxaabigii jaliilka ahaa ku yidhi, adiguma waxaad ka mid tahay kuwii muxamed raacay? wuxuu saxaabigii ku yidhi, maya, balse ogow cumarow, ka hor inta aadan u aadin muxamed si aad u soo disho ka bilaaw reerkaaga. markaas buu cumar ku yidhi, yaa wahay qofkaas? ma qof ka islaamay reerkayga ayaa jira? wuxuu saxaabigii ku yidhi, walaashaada faatima iyo sawjkeedaba waxay raaceen muxamed. markaas buu cumar wuxuu yidhi, ma sidaas bay samaysay? wuxuu saxaabigii ku yidhi, haa. markaas buu cumar isagoo caraysan oo degdegaya wuxuu aaday gurigii saciid ibnu zayd oo ahaa ninkii qabay walaashiisa faatima. markaas buu intuu guriga ugu yimid albaabka u soo garaacay. xilligaasna waxaa gurigooda la joogay khabaab binul arati oo qur'aanka barayay saciid ibnu zayd iyo faatima radiallahu canhum ajmaciin. khabaab ayaa markii uu arkay in cumar uu soo socdo wuxuu ooga dhex dhuuntay guriga dhexdiisa. kadibna waxaa albaabka ka furay saciid ibnu zayd. markaas buu cumar intuu qabtay ku yidhi, adigu miyaad islaamtay? markaas buu saciid ku yidhi, yaa cumar, ara'ayta in kaana alxaqu fii gayri diinik? cumarow, bal ka waran haddii xaqu uu ku jiro diintaada kayrkeeda. markaas buu cumar dhirbaaxo ku dhuftay. kadibna walaashiisa faatima ayaa intuu qabtay ku yidhi, adigu miyaad islaamtay? kadibna waxay faatima ku tidhi, ara'ayta in kaana alxaqu fii gayri diinik? cumarow, bal ka waran haddii xaqu uu ku jiro diintaada kayrkeeda. markaas buu wuxuu ku dhuftay dhirbaaxo aad u xoog badan oo uu la geduutay wejigeeda. markaas baa waxaa gacanteeda ka dhacday saxiifad ama waraaqad uu qur'aan ugu qornaa. markaas buu cumar ku yidhi, naawiliini haadihi saxiifa, ii dhiib ama keen warqaddan.
markaas bay Faatima radiyallahu canha ku tiri: anta mushrikun najisun idhab fatawadda thumma qra. waxay ku tiri: waxaad tahay mushrik nijaaso ah, soco oo soo weyse qaado kadib ayaad akhrinaysaa. markaas buu Cumar soo weyse qaatay oo kadibna akhriyay saxiifaddii ama warqaddii, waxaana warqaddii ku qornaa sida tan: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. intaas markii uu akhriyay ayaa Cumar qalbigiisa gilgishay, kadibna wuxuu yidhi: maa haadaa bikalaami bashar, hadalkaanu ma ahan hadal bani aadam uu ku hadli karo. kadibna wuxuu yidhi: ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. kadibna wuxuu yidhi: itusiya xagguu joogaa Muxammad. markaas buu Khabaab binul Arati intuu u soo baxay ku yidhi: aniga ayaa ku tusinaya oo kuu geynaya. markaas buu Khabaab waday oo geeyay Daarul Arqam binul Arqam oo ay ku jireen Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo qaar ka mid ah saxaabadiisa. markaas buu Cumar binul Khataab albaabka u soo garaacay. kadibna waxay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ku yidhaahdeen: waa qof ma? wuxuu ku yidhi: waa Cumar. markaas bay saxaabadii ka baqeen oo guriga dhexdiisa ooga kala dhuunteen. kadibna Xamsata binu Cabdulmutalib ayaa intuu u soo istaagay Nabiga sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: aniga igu daa yaa rasuulallah. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: utrukhu yaa Xamsa, iska daa Xamso. kadibna Cumar ayaa guriga soo dhex galay. markaas buu Nabigu sallallahu calayhi wasallam intuu qabtay ku yidhi: amaa aana alawaanu ya bna alkhataab. markaas buu Cumar wuxuu yidhi: innii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulullah. markaas bay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim takbiirsadeen takbiir aad u weyn oo ay wada maqleen dhammaan dadkii joogay Maka. Cumar islaamiddiisu waxay islaamka u ahayd guul aad u weyn, wuxuuna rasuulku sallallahu calayhi wasallam ahaan jiray mid mar walba u duceeya isagoo dhihi jiray: allaahumma acizza alislaama biaxadi alcumarayn. ilaahayow islaamka ku cizeey labada Cumar midkooda. labadaasoo kale ahaa Cumar binulkhataab iyo Camri binulhishaam. xilligaas wixii ka bilowday wuxuu sayidunaa Cumar binulkhataab la soo banbaxay geesinimadiisa. intuu soo istaagay ayuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: yaa rasuulallah, alasnaa cala alxaq. rasuulkii ilaahayow, soo inagu xaq kuma sugnin? wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: nacam, haa. wuxuu Cumar yidhi: alaysuu cala albaatil, mushrikiintu soo baatil kuma sugnaa? wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: nacam, haa. wuxuu Cumar binulkhataab yidhi: fa fiima alikhtifaa, maxaan isku qarinaynaa? wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: famaa taraa yaa Cumar, sidee baad wax u aragtaa Cumarow? wuxuu Cumar yidhi: nakhruju fanutawifu bilkacba, waan baxaynaa, waxaan ku soo tawaafaynaa kacbada. wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: nacam yaa Cumar. markaas bay muslimiintu markii ugu horraysay soo baxeen iyagoo takbiirsanaya oo tahliilsanaya,
iyagoo ku socda laba saf. saf waxaa madax u ahaa oo horjoogay u ahaa cumar binulkhadaab, safna waxaa madax u ahaa xamsa binu cabdulmutalib, waxaana dhexdooda ku jiray rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam. waxay soo baxeen iyagoo dhahaya allaahu akbar walilaahi alxamd, ilaa ay ku tawaafeen kacbada. quraysh ayaa markii ay arkeen waxay ku xaroodeen guryahooda iyagoo ka baqayay islaamnimadii cumar binulkhadaab iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa. xilligaas wixii ka dambeeyeyna waxaa cumar binulkhadaab loo bixiyey naaneystiisii ahayd cumarulfaaruuq radia allahu tacaala canhu wa ardaah. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشينا شرفت له، فضلا هايلو بنا موقالك إناد لايك سارتان وأدلسي وذاكتان أصحابتينا. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad sabskaraib saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.